kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal waxaynu qaybtan ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ku laabtay furinta dagaalka ciidanka uu hogaaminayo iyo waliba kooxda falaagada ee dawladdu ay argixisada u aqoonsatay ee TPLF ayaa waxa dhaxmaraya dagaal aad u qaraar kuwaasi oo ka dhacaya goobo kala duwan oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya haba u darnaadaan deegaanka Axmaarada TPLF waxa la sheegay in ay dib ula wareegeen magaalada istiraatiijiga ah ee Lalibela oo maalmo ka hor ay ka baxeen kadib markii kaabiga ay u fuleen ciidamada dawladda uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo 2 toddobaad ee la soo dhaafay guulo la taaban kar ka gaaray furimaha hore ee dagaalka xogihii ugu dambeeyay iyo macluumaad la xiriira magaalada Lalibela iyo qaabka ay TPLF ula wareegtay iyo xaalka sida uu yahay iyo halka uu guud ahaanba dagaalka uu marayo ayaynu ku eeginaa qaybtan haddii baa wada loo ogolaado dhinaca bidix waxa fadhiya guulada Alifle isaga ayaa soo indheeyay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Itoobiya oo aan wax ka weydiin doonaa dhowr iyo 10 daqiiqo ee fooday nagu soo haya guulad soo dhaw aad baan u mahadsantahay saaxiibka ilka case daawadayaasheenna waan salaamayaa meel kasta ee caalamka inagala socdaanba waa hagaag barsalaantaas kadib dalka Itoobiya Soomaalidu waxay dhahdaa war la qabixiisa malo oo dagaalada dalka Itoobiya ka socda oo sanad iyo waliba waxa weeye goog socda in badan dadku u taminaynay oo dadku waxay moodaa inay aad u xiiseynayaan xaaladda dalka Itoobiya Soomaalida oo de markii hore ka qabtay Itoobiya in ay cadow ku tahay iyo dad Soomaaliyeed iyo dal ama deegaan Soomaaliyeed iyadana waxa weeye Itoobiya hoos jooga marka la fiiriyo dad baan waxay u arkaan in ay sabab u tahay sababta ama maartay waxa weeye dadka Soomaalida ay aad ugu xiiseynayaan dagaalka Itoobiya bal marka aan ku horeyno dagaaladii socday iyo waxa weeye xiisadii taagnayd iyo halganka labada dhinac u dhaxeeya saacadihii u dambeeyay marka la fiiriyo halkee wax marayaan aad bad markale u mahadsantahay saaxiibkay dadka Soomaaliyeed waxay aad ugu daneynayaan arrimaha Itoobiya cadawgaaga iyo naseexaaga inaad ka warhayso way fiicanta aadiyeed marka waxaan isleeyahay si fiican bay iyadaba inooga warhaysay intii burburka iyo dhibaatada lagu jiray Soomaalidu ay ku jirtay ha marka hadda waa in Soomaalida ka warhaysaa walaal hadda soo waliba jifooyinkeena iyo qabiiladeena hoose ee kala baratay goojaan ka yimid iyo ku kala sheegay isagoo jooga meesha ugu dambeysay maxaan ku yiraahdaa koonfurta Soomaaliya aadiyeed innaga hadda inaynu dadkeena barra marka jifooyinkeeda oo aynu si ablayno oo say u culuuday iyo say u saaxiib yihiin say soo socdaan aan u kala sheegno waa waqtigeedii sidaas aan filayaa inay Soomaalidu ay doonayso in arintani maadaama Itoobiya cadaawad guun ay naga dhaxayso dhul Soomaaliyeedna ilaa maanta ay haysato ay u daneynayaan inta aan ka soo gudbo waqooyiga Itoobiya wali kuma joogto baashi kolba dhinac ma la soo cayrsanaya waliga ma maqashay meelan rabay roob ma ii helay dad badan u tahay toddobaadkii hore waa kii dawladda dhexe ay guulo sheegatay deegaano badanna ay dib uga sifaysay xoogagan TPLF oo ay dib uga qabsatay toddobaadkan oo Abiy Ahmed oo shalay uu meeshii tagay marka laga reebo intii uu furinta ka soo muuqnaa wax badan baa isbedelay nimanka saraakiisha oo meesha kaga yimaado waxaan u malayn inaysan baasha daacadka ayna isaga wajacabkiisa shabarkiisa soo laabto bay ka soo doonaa ku dagaalamayaan ba aadiyeed markuu isagu u tagano way dagaalamayaan oo waxbay qabsanayaan oo balaayay sameynayaan marka uu ka soo laabtana baasha sheekada bartii way ku laaban marka ma Abiy daroonku dul socotaay oo baasha wata oo remote-koodii wata mise nimankana hakranaya saraakiisha meesha kaga imanayo waqtiga ka jawaabi doona ilaa iyo shalay dib waxa looga qabsaday dawladda dhexe dalka Itoobiya deegaano muhiim ah waxa laga qabsaday magaalada Lalibela ee caanka ku ah kaniisadaha Itoobiya waa magaalada ay ka soo bilaabatay waanu malan gaalnimada Itoobiya oo dhanba waxa ku yaala kaniisadaha ugu badan waxa ku yaala kaniisada dhagax laga qoray oo dhulka hoose laga soo bilaabay ma aha guri la dhisay buur baa la qoday dhagax baa laga soo qoday
magaaladan waxay caan ku tahay taariikhdaasi dhanka kaniisadaha waana magaalo istiraatiiji ah haatan xilligan la joogo oo wax badan muhiim ku ah magaaladan waagii hore waxaa lagu magacaabi jiray Roha ha macnaheedu maxaa weeye marka waa un magacyo amxaareed magaaladan Roha waxaa bedelay magaceedii oo ka bedelay oo magacan Lalabeele hadda loo yaqaan u bixiyay boqor qabsaday boqorka waxaa la dhihi jiray Gabrameska Lalabeele la dhihi jiray marka magaciisii uu bixiyay magaaladii boqor buu ka ahaayo amxaaradu waa wax xil jecel hadana xilka markay qabato aad ugu takrifash magaaladan boqor buu ka noqday iyadoo Roha la dhaho kadib markii uu boqor ka noqdayna magaciisa wala bax isaga Gabrameska Lalabeele la dhaha magaciisa wala bax marka magaalada saas uu magaceedii uu ku soo bedelmay oo hadda Gabrameska Lalabeele oo boqorkaas oo waagii uu dhashayna waxa la yiri taariikh badan bay amxaaradu ka sameysay hooyadii markay saa u dhashay Lalabeele meesha Roha la dhigi jiray ay ku dhashay waa meesha ku dhashayba waxay tiri baa la yiri magaalada Shiiniba isku hareeraysa waa Lalabeeladan markuu dhashay way isagoo yaani la ababininba oo wali darkad meeshii saaran yay tiri boqor buu noqon doonaa ni Abi Ahmed aan sidan u noqdaa waa saas sidii doon ma noqotay ninkaas horta magaca ka bedelay magaaladan waxay ku taallaa waqooyiga gobolka Wollo waana magaalada labaad ee ugu taariikhda weyn dhanka kaniisadaha iyo kristanka ee dalkaas Ethiopia marka laga yimaado Aksum oo u ah xarun xajka kala magaaladan waxa ay muhiim u tahay waxay ku taallaa goobo ay wadooyin badan oo muhiim isugu yimaadaan waxaana la aasaasay qarnigii 7 ilaa 12aad ee magaaladan la soo aasaasay magaaladan ugu yaraan waxa ku nool marka aynu tixraacno 2007 tirakoobka Ethiopia sameysay 17,367 qof yaa waaga la sheegay inay ku nooleed dadka ku nool aad ma sii badna laakiin hadana waa magaaladaas qadiimiga ah aadka sidaas caanka waxa kale oo muhiim ah iyadana u baahan inaan xusno maadaama taariikhda magaalada wali aan ku guda jirro in muslimiintu mar ay qabsadeen magaalada marka maxilliga Axmed Gurey markuu hilibka Cayrin barayay miyuu qabsaday maqoolyo kale oo markii muslimiinta ay Qudus dib u qabsanaysay East Africa soo gaaray baa qabsaday taariikhda ay ma kala cad laakiin meeshan xogta ka soo xigtay taariikhda magaalada lagu xusay waxa lagu xusay kaliya in muslimiintu mar ay qabsadeen magaaladan intaas markay magaalada taariikhdeeda uga imaanno bishii August horaanteedii sanadka 2021 ETBL markii ugu horeysay caga dhigatay magaaladan oo ay qabsatay oo ciidamada dawladda ka saartay dhowr bilood kadib markii ay meesha haysatay dhowr bilood ciidamada dawladda dib u laba kacleeyeen waa kii Abiy Ahmed uu dagaalka galiyay 1 December oo bisha hadda aynu ku jirnaa dib u qabsatay dawladdu xilligaasi nin lagu magacaabo Burkina oo kamid ah saraakiisha ciidamada dawladda deegaankaasi qabsaday wuxuu yiri guusha aan ka gaarnay argagixisada TPLF magaalada Gashena door muhiim ah ayay ka ahayd inaynu ka caydhino ama dib uga xoreyno magaaladan Lalabeele TPLF marka Gashena iyada laftirkeeda waa tii shalay aan soo tabinaynay aad iyo aad waa Gashena qabsashadeedii markii hore waa tii dawladdu ay sheegtay tiri Gashena markay qabsatay ay lahayd waxaan u jahaysanaa si aan u qaban lahayn Lalabeele iyo واتي لا سود علي أبي مركب حفيز كل عطية يقولنا دب وعرّي كشينا وعلى قبصة لا بيرنا دب على قبصة والله جواد مهمة والله جواد مهم هو أي أدو قفانيين مركب هار الدولة درح أزياد قول دراوين كاسي لو هذا مجال كسو جاري عفيان كي الدولة إثيوبيا وحل الربعين لقوا يديو أزياد لقيسة تولو تلفون كي بده سيدي رادع وكمان ويتو عفيان كتيب بلف تلفونka uu qoon waayay mar la doonayay in wax laga weydiiyo xilli waliba aadka magaalooyinka looga eriyay qoladii la jabiyaba warbaahinta waa ka dhuumataa qoladii guuleysatana naftay u keentaa say u wacayso halkan aan qabsanay bartan aan taaganahay sawirkan waa meel hebla halkan waa bangigii bartan waa bahalkii halkaas ku soconayda bartan halkaas ku sii socona meel hebla qabsanayna aadiyad sheekadaas ay bilaabay qoladii ay bahasha ay la jirta markaa si fiican afayeenkii dalkaas Ethiopia uu diiday telefoonka inuu qabto isagoo la rabay wax laga weydiiyo Lalabeele iyo sidoo kale Gashena iyo deegaanadan cagta lagu mariyay TPLF war ka soo baxay oo ay dagaaladan kaga hadashay magaalooyinkan ka dhacay waxay sheegtay inay ku dishay 80,000 oo ciidamada dalka Ethiopia
fara badan 80 marka ma hal goob bay ku dilaysaa goobo kala duwan waxay leeyihiin dagaaladan ka socda Gasheena iyo sidoo kale Lalabeela yaanu dib ugu qabsanay yaanu ku khaarijinay hadalkaas macquul ma yahay marka waa 100,000 ku dhawaad 80,000 oo aysan jirin diyaarad baa aysan jirin inay leeyihiin macnaha diyaaradaha duqeeyay ama maaragtay muxuu ahaa dhul dhan oo macnaha ay ku sugnaayeen ciidanka ba waxa weeye intaan kor u qaaday agadinay say marka macquul ku noqon kartaa 80,000 ma hal goob ku dilay طبعا iyagoo diyaaradana aysan jiraan horta propaganda la socod waxa laga yaabaa in xitaa kun qof aysan meesha ku dhiman labada dhinacba aad iyo aad propaganda la socod marka ninkii rumaysanaya rumayso ninkii beeninayo beeni laakiin ka warbaahin ahaan inaga ma xaqiijin karo in tirada inta leeg ee rasmiga ah ay labada dhinac iskaga dileen goobtan lagu dagaalamay mana jirto warbaahin madax banaan oo aan ka soo xiganayno ilaa tirada ay tiradaas yaa meesha ku dhimantay laakiin warkan wuxuu u egyahay war propaganda oo bahasha lagu sii kacsanayo aad iyo aad hal baas jirto meesha in la isku faraxash oo iyaga markii laga caydinayay inay tay diyaarado dul istaagtay hubkoodii iyo tiknikadoodii la soo bandhigay sida loo baabiyay hatta iyagu markii la labeela ay dib u qabsadeen niyo ma aqaana baabuurta ay qabsadaan furaashye iyo marya iyo qashin baa ka buuxa oo dhulka la soo daadiya kuwa ku saxan ninku jabhaday baabuurta markii ay la qabsadeen la soo sawirayo baabuur kaliya meel taagan oo qorigiisii isaga soo soobiyo meesha taagan la soo sawiri ma jirto furaashka yar iyo karinta yar iyo waxa la agdhigayo show in la madama nimanku ay geediyiin hadii waxa weeydi walba wuxuu wataa wixii uu ku seexan lahaa uu huwan lahaa si kasta waa noqoto labada dhinac oo isku falaxasheen deegaanadaasina dad badan ay iskaga dileen hadii aynu u leexano ama aynu eegno guulaha ay dhanka dawladdu sheeganayso iyaduna inta in leeg ya furuntan hada la labeelay la isku hayo mooyee ta kale ee dhanka canfarta oo waligeed ba ay ku liibin sareysay ay iyaduna ka sheeganaysaa shalay iyo daraadii waa kaynu soo tabinaynay dagaalada ay ka socdeen buurahan muhiimka ah ee istiraatiijiga ah ee Zobel lagu magacaabo kuwaasi oo ay dawladdu ay sheegeen in ay qabsadeen isla markaasina ay gooyeen wadadii Maqale iyo isku xidhaysay Waliya waxay leedahay dawladdu buurahaasi si rasmi ah u hayna hada waana ka sii gudbaynaa hada waxaan u sii talaabaynaa bay yiraahdeen deegaan lagu magacaabo Wacha oo ay rabaan istiraatiiji isaga laftirkiisa oo wadadani ay dhaxda ka jareen wadooyin ka leexday ay soo maraan oo ay isticmaali karaan kooxdan TPLF marka waxay leeyihiin Zobe waanu ka dhaqaaqnay ciidamada dawladdu iyo canfartii la socotay iyo maleeshiyaadka faanaba waxaana ku sii wajahanahay waaja deegaanka lagu magacaabo oo aan haatan qarka u saaranahay inaanu qabsano waxa kale xusid mudan in Abiy Ahmed oo firinta hore ee dagaalka oo ku laabtay maalinimadii shalay ahayd oo sidiisii buuraha isku soo sawiray kana mooji inuu guulihii degdega ah keeni doono oo talaabooyin hore u qaadi doono iyo in sheekadu inta ku ekaan doonto waqtiga ka jawaabi doono laakiin Abiy Ahmed furinta hore ku laabtay dawladuna waxay leedahay waan dhaafnay Zobel oo waanu ka gudubnay dhanka iyo Wachel ayaana qarka u saaranahay inaanu qabsano hore baan u sii soconaynaa ilaa iyo Maqalaan ka tagno waxa aad ma santahay guridow halkaas marka uu wax marayo Maxamuda dagaalka Itoobiya inuu noqday marba dhinac in la eriyado martii beelaf la eriyado si loo sii wado meel markii la geeyo iyagana day waxa weeye wax iska barbaraan ay ciidankii dawladda soo cayrsanayaan marka la fiiriyo xaalka sida uu yahay waan iyo wada hadal meel dhalahana aysan jirin maxaa la isooran karaa dagaalka Itoobiya ilaa goor ma socon karaa masajidta wax rajo ah oo laga qabo dagaalka Itoobiya intuu joogsado in wada hadal iyo miis korkiisa dhinacyadan ay waxa weeye ku soo afjiraan colaada sanadka iyo maartay bisha ilaa 13 bilood baa la sheegay inuu dagaal ku socdo horta Addis Ababa iyo Maqale intay nabad yihiin dagaalkan kolba dhinac ma la soo caydhayay hadiyaa ilaa TPLF Addis Ababa ka soo taabato Abiy Ahmed kama takhalusi karto ama Abiy Ahmed ilaa uu ka soo taabto Maqalana TPLF kama takhalusi karo sidaan u baahan la soo caydhayay waxa hadda lagu dagaalamay khasaaraha ugu badan oo ku dul dhacayana waa nimankii faanka badnaa ee amxaarada hadiyaa maanta oo aynu hadda hadlayno waxay ku beegan tahay maalinkii Abiy Ahmed uu dib intuu qabsaday Maqale ciidamadiisu waa kuwii qabsadeen uu tagay ee uu ka khudbadaynayay maanta ku beegan
ومركي وصلتكي لو يكون 20 ها maalinkii uu qabsaday hal sano ya hada ka soo wareegtay maalinkii uu isa qodbada ka jeedinayay maqale ee uu dib u booqday diyaaradda uu ku tagi jiray militariga soo tuutaa qaba ciidamada militariga la hadlay maalinkii horta hal sano oo ned ya hada laga joogaa maalinka wuxuu yimid taqaana TPLF dagaal wuxuu kama yaqaanaa aadiya sababta aan durba u jabinay laga dareemi karaa in halkan u joogno dagaal dhumaalaysi mooyaane dagaal kale ma yaqaanaa maalinkaas u saalaha waxaad moodaa dagaalkii inuu wali sidii u socdo kana khasaare badan yahay maalinkaas ciidamadiisu la hadlayay maalinkaas oo dardaaran noocyo kala duwan uu u jeedinayay wuxuu lahaa nin libin gaaray oo guushii taabtay iyo horta way ka nimankiina sax wayna ahayd oo de si dhaqso ah iyo maqala ku tagayba nimankiina godadka maca ku dhuuman jireen la soo sawiray oo madaxtooyada maca godad dhulka hoostiisa ugu yaal madaxtooyada intay ka galaan xaafadaha kale maqala uga dhex baxayeen marka guushii sidaas ahayd iyo saasaankii sidaa ahaa hal mar umbu dhinaca kale isu gadiye waa kuwii dawladdu ay soo baxday Abiy Ahmed maalinka wuxuu inoo sheegay inuu dagaal ku dhamaaday ciidamada Ethiopiana ee qaranka Ethiopiana waa si isagu hadalka u dhigay ay ku mahadsan yihiin sida iyadoo magaalooyinka Ethiopia lagu dagaalamin ay kooxda TPLF u soo afjareen wuxuu yiri ciidamada Mareykanku 8 bilood bay ku qaadatay inay Saddam Hussein ay soo qabtaan markii ay Iraq weerareen anagana maalinkaas uu qodbadeenay ciidamada idinkana hadaa tiin militariga Ethiopia hadaa tiin oo waliba aniga oo wiil idinka soo dhex baxay aan idin hogaaminayeen waxa inta ka yarbaa ka rabaa inaad ku soo qabataan TPLF wuxuu ku bogaadinayo aad ugu amaanayay in magaalooyinka Ethiopia aan aad loogu dagaalamaynin oo iyagoon burburin waana runtii maalinkaas burbur ma jirin maqala dhibaato badan kama jirin iyadoo nabad baa la tagay haddase maca isbitaaladii baa sariiraha laga gurtaa aad iyo magaalooyinka intii lagu dagaalamo oo meydku isdul furfuro kombalja maxaa ka dhacay markii ay ka cararayeen ciidamada dawladdu TPLF intay soo gashay dhalinyarada amxaarada la Ingiriis iyo xasuuq dabada u qabatay 100 iyo hodhodhow hal maalin lagu dilay waa tii dawladdu ka hadlaysay marka sheekadii ahayd ciidamada Mareykanka la barbar dhigay kuwa Ethiopia waxa ka dambeysay maxaabiis fara badan oo ay dawladuna Photoshop ku sheegtay TPLF tuna ilaa hadda haysato oo xarxaraysan waxa ka dambeysay dagaalkii ilaa maanta socda oo aan la saadaalin karin meesha uu dhici doono kol Addis Ababa 130 kilomitir loo tago kol maxaan ku idhaahdaa 30 kilomitir looga dhawaado maqale oo dhankan canfarta laga galay kol badhinac baa la soo cayrsanayaa waanu fiirinaynaa cidii bal bahasha dhinac u toorto aad وحقاق أدو ما سيهي قولة داوديال قضب كان انتاس ايانو كسو قبقبينينا أم كو يقيني ورركي وقدم بيي دقالة وقوية دالك إيتوبيا كالسعودة واد موددين نقدين تيه كل بدنا حاوي يكوح لو إرينا يوحي معلومات يوررها كسو كل الدبيان إذا كرو ذاك الدنيا دي بها ودرو وقلادو سيداسي نبت قليا صاحب بيان